hagaajintooda xillanidii tababarkooda siyaasadda lagu hagaayo shaqaalaha dib u habaynta tayaynta hagaajintooda xillanidii tababarkooda siyaasadda lagu hagaayo mushaaradka hagaagay intii hore laga siyaashay shuruucdiyo heerarkeeda abkaa la baray dastuurka mushaaradka hagaagay intii hore laga siyaashay shuruucdiyo heerarkeeda abkaa la baray dastuurka intisih dawladeenu barwaaqu noo horseeday wadnaha wataa hayaantay wadada wataa u guurtay waxaysanaysa meesha adduunyadu horay u gaartay intisih dawladeenu barwaaqu noo horseeday wadada wataa u guurtay waxaysanaysa meesha adduunyadu horay u gaartay golaha wasiirada mas-uuliyiinta kale ee dowladda risk oo nagala joogto Kenya School of Governance shaqaalaha dowladda ee maanta halka isugu yimid qayb ka mid ah qaybtii dhamaysatay tababarkii shaqaalaha ee uu bixinayay iskuulka runtii sharaf weyn bay tahay inaan maanta inagala soo qayb galo xafladan qiimaha ku fadhida oo muujinaysa sida Puntland uga go'an tahay sida ay hore u sii wadi lahayd dhismaha dadkeeda iyo dalkeeda kelmadihii gabadha halka ka jeedisay ayaa ku filan ciddii dhaga wax maqla leh dabcan farqiga u dhaxeeya public service-ka iyo private service-ka si fiican bay u sharaxday dowladnimada lacag looma soo doonto dowladnimada waxa weeye in dad yar baa u shaqeeya ujeedadoodu ay tahay dadka badan inay noloshooda xambaaraan markay hurdaan ay soo jeedaan markay raaxaysanayaan ay shaqaynayaan si loo helo dal xasilan oo nabdoon oo degan oo dadka soo jiita hadalladeeda sidaas hayeen waxaan ka xumahay waayadan dambe in dad fara badan ay u haystaan dowladnimada in lacag laga helo lacag loo soo doonto waana khaladaadka dadka Soomaaliyeed ee mar labaad inay galaan aan ka baqayo oo dowladnimadooda wiiqi doono qofka ikhtiyaarka inuu ummadiisa u shaqeeyo goosto waa sharaf iyo qiimo gaar ah oo runtii qofka la rabo inuu nuxurkeeda iyo value-giisa u leeyahay taasaan boorinayaa fikirka waayadan dambe aadka u soo dhex galay oo laga dhaxlay burburkii waxaan rajaynayaa casharadan faraha badan ee la qaadanayo in looga kaaftoomi doono mustaqbal fiican oo wixii aad barateen laga arko xafiisyadiina u gudbisaan dadka aan fursadda helin shaqadiina ay ka muuqato ayaan idin rajaynayaa dabcan dardaaran idinku waad qabtaan oo dadkii la tababaray baa tihiin marka waxaa iniga filan casharadii aad qaadateen oo u diyaarsanaa inaad u diyaar garowdaan hogaaminta dalkiina iyo dadkiina waxaan rajaynayaa inaan ka dheehan doono xafiisyadiina waana waxa ay Puntland uga duwan tahay meelo badan oo Soomaali ah waa maalgelinta faraha badan ee ciidamadeeda iyo shaqaalaheeda iyo dadkeeda dawladnimadooda muddada dheer la soo gelinayay maantana ay 25 jirsatay marka
hadal badan uma aan kicin waxa muhiim ah maanta waxaan rabnaa halka in lagu saxiixo heshiis iskuulka Kenya School of Government iyo maxadkii hore oo lagu daray maxad isna jiray baa jiro oo local government-iga ah oo labadooda marka la isu geeyo noqon doona Puntland School of Government oo aan rajaynayno inay miisaaniyadiisa mashruucan hadda mashruuc kaalmo ah buu ahaa laakiin miisaaniyadiisu ay inta hadda kadib ay qaadi doonto dawladda iyo cidii kale oo ay kaalmo uga hesho waxaan rabnaa inaan joogtayno tababarada iyo casharada la qaadanayo iskuulkana oo mataan nala ahaado oo san noqon iskuul waqti kooban joogay oo iska tagaya si aan u soo min guurino aqoonta iyo khibradda iskuulkaas oo sida la sheegay muddo 100 sano ku dhow hadda jira ama 90 sano sida la sheegay 1930 meeyadii la aasaasay waxaan u baahanahay inaan ka faa'iideysano ardada qayb loo diro kuwa halka ay macallimiintu yimaadaan khibradda la transfer gareeyo macallimiintii tababarka ku guuleysatay ay bixiyaan tababarku uu noqdo wax joogto ah oo isdaba socdo oo aan hakad lahayn mar walba baahida markaa jirta iyadoo lagu jaangooyn doono intaas ayaan rabaa hadalkayga inaan ku soo koobo waad mahadsantihiin dhammaantiin intii ka soo shaqaysay wasaaradda shaqada ugu horeyso mas'uuliyiinta maxadka ay ku xigaan maxadka School of Kenyan School Government ku xigo iyo macallimiintii Soomaalida ahaa ee tababaratay ee tababarka sii bixinaysay iyo shaqaalihii fursadda ka faa'iideystay oo sida saxda ah u tagi jiray oo attendance-gooda u fiicnaa maantana aan farxadda la qaybsan doono intaas ayaan rabaa inaan hadalladayda ku soo gabagabeeyo aad baad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh